mudanayaasha iyo guddoonka waa salaamaya qodobka afartanaad farqadiisa saddexaad nidaamka goobta codbixinta oo uu ugu horreeyay oo ka hadlay Xuseen Idow oo safafka ah waa run sidii Xuseen u sheegay Soomaalidu dhaqan bay leedahay siyaabo badan baa la isugu yimaadaa inagoo hadda si baynu u fadhinaa waxaan qabaa inaan lab iyo degdeg loo kala soocin dadka hadduu rabo muxuu ahaa iyadoo caadiya safafku waa kala noqon karaan laakiin inaan magac bixin lagu samayn in muxuu ahaa laba saf la kala noqdo waayo golahan aynu joogno in xataa ku fadhinaa marka basaskaa lagu wada raacaa Soomaalidu way isku dhex jirtaa dhaqan ahaan muxuu ahaa wax muxuu ahaa cillada male marka arrintaas inaan muxuu ahaa laga dhigin lab iyo degdeg la kala sooco haddaan qawaaniintu dhan la waafajinayo kaasaasaan u qabaa qodobka afartanaad farqadiisa koowaad muddada codbixinta oo la yidhi 7 subaxnimona ha bilaabato 8 fiidnimona ha dhammaato innaga magaalo keliya laguma codbixinayo ceelal baa lagu codbixinayaa meeshii mujtamac joogaba meelo xataa muxuu ahaa deegaanaha oo aan lahayn muxuu ahaa layr iyo ama markaa intii la yimaado maalintii oo mujtamac badan yimaado galabtiina laga caraabayo marka inay noqoto doorashaduna dee dabcan waqtina waa ku bilaabataa waqtina waa ku xirantaa guud ahaan marka in xilli mucayima aroornimada horeba la yimaado 6 kale 5 galabnimo kalena muxuu ahaa laga baxo aniga sidaasay qodobkaasuna ila muuqdaa qodobka 56 farqadiisa saddexaad waa dib u dhaca doorashooyinka meelo badan baa laga sheegay si saxa aadanaha awoodo ka waaweyn baa jira oo waxa inagu aynu yidhaahnaa aafooyinka oo sifaday rabaan ku yimaadeen marka wax waa bedelaan waayo awoodda aadanaha waa ka weyn tahay laakiin awoodaha aadanuhu leeyahay dib u dhaca doorashada in lagu sifeeyo anigu ma qabo sida xarafka C oo ah arrimo farsamo maxay yihiin farsamo halkaas caddayn bay u baahan tahay aniga arrimo farsamo in doorasho qaran ku baaqan karo ma qabo caddayn bay usii baahan tahay waayo laakiin qodobada hore oo la sheegay oo muxuu ahaa aafooyinka iyo awoodda aadanaha ka weyn wax waa ku baaqan karaa aniga sidaasay ila tahay waana mahadsantihiin